inaad fuusho miil 10 waa mid xiise leh gudaheeda 6 mitir oo dherer sare ah ayay leedahay helikobtartan aadka u weyn taasina waa nooca xamuulka oo keliya nooca rakaabka ah oo 70 kursiya waa inay leedahay jaranjarooyin rasmi ah laakiin xitaa noocan miil 10 waxa ay qaadi kartaa 15 tan oo xamuul ah ama 30 kursi oo looga dejiyay dhinaca hoose halka diyaaradda laga wado waxaa ku yaala CCTV oo duuliyuhu ku arki karo haddii xamuulku uu dhaqdhaqaaq samaynayo wariye BBC-da ka tirsan ayaa u duulay goob diyaaradda lagu soo bandhigayo waxa uu sheegay in aad loogu farxayo gudaha laakiin dhulka marka laga eego 5 ka mid a marwaxadaha waaweyn ee helikobtarka waxa ay gaarayaan lugaha filimqaadaha helikobtartu waxa ay qaadatay 7 sano in la horumariyo la casriyeeyo qiimaha iibku waxa uu ahaa mid ka badan 800 oo kun oo dollarka Mareykanka Russia waxa ay sheegtay in qiimuhu uu raqiis yahay sidaana ay u sameeyeen sidii loo iibsado oo si ka wanaagsan helikobtarada dhigooda dalka Mareykanka waxa aanu rajaynaynaa in dadka qaar ee dalkan Ingiriiska inay xiisayn doonaan qalabkan gaar ahaan shirkadaha dhismaha ka shaqeeya dalkeena waxaanu isticmaalnaa helikobtarkan si guul ah Ruushku waxa ay rajaynayaan in 5 ilaa 6 diyaaradahaasi ay ka iibiso Yurub diyaaradahan helikobtarka ah waxa loo nashqadeeyay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen in alaabooyinka Ruushku sameeyo loo helo suuq Russia waxa ay rajaynaysaa in 5 ilaa 6 diyaaradood ay ka iibiso Yurub in qiimuhu uu raqiis yahay sidaana ay u sameeyeen sidii loo iibsado Britain waxa ay sheegtay beecaasi inaanu suurtagal ahayn tan iyo inta horumar laga gaarayo hanaanka dayactirka iyo qalabka sida ay u qaybiyaan Russia